عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga ah waa channelkeygii maamo sharaf oo idin leh soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah meel kastoo dunida daafiyada ka joogtiin maanta barnaamijka idin hayo waxaa walaalahayga qaaliga ah haddii gabadha iyo wiilka ay isguursadaan Soomaalideena inta badan waxay sameeyaan in yaroo kooban maana inta kale waxay geeyaan wiilku wuxuu geeyaa guriga hooyadiis markuu guriga hooyadiis wiilka geeyo waxaa dhacaysa in gabadhii oo walaalkiisa wiilka la dhalatay iyo hooyadii iyo inay gabadhii la keenay ee isku dhacaan markay isku dhacaan adiga heer xil in lagu kala gaaraa dhici walaalahayga qaaliga marka ma fiicno in yacni gabadhii ay sodohdii dhibto sodohdana ma fiicno inay gabadhi wiilkeeda soo guursado inay dhinto sababtoo waa gabadheedii oo kaleeto gabadhi ee dhasho kaleeto waaye waa inay dhibin ayadana maamada ayadana waxaan leeyahay dhibin hooyo gabadha sodohda oo tahay gabadhana waxaan leeyahay sodohda waa hooyada oo kaleeto hooyadaadi ku dhasho kaleeto waa sida hooyada u tixgelinaysay waa inaad u tixgelisaa walaasheedii ma ahan inaad ku ifcelisid ma ahan inaad la dagaashid gabadha wiilka la dhalatayna waa walaashaa oo kaleeto ayadana markii la isku fiicnaado la is aamino meeshaas dad fiican ayaa ka soo baxayo isku dhac ma imaanayo kala tag ma imaanayo haddii ay wiilka hooyadiis ay fahmaan gabadha wax dhibaataa ma imaanayaan inta badan reerarkan dumaayo oo kala tagaan badan gabar yaroo 16 sano jirto garoob loo arkaya waxay tahay wiilkii waxaa laga yaabaa inuusan shaqaynin oo reerkiisii la joogo reerkii hooyaa joogto gabdhihii walaalihiisa ay joogaan marka qasab waa la isku dhacayaa walaalahayga qaaliga ah waxaan rabaa in la isxushmeeyo inaan anaga isxushmeynaan rabaa haddii aanan anaga isxushmeynin maxaa wax wanaaga ma yeelanayno anaga laakiin haddaan anaga isxushmeyno oo noqono dad wanaagsan aan noqono walaalahayga qaaliga ah meeshaas qoysas badan oo burburana ma la arkaayo waxaa soo baxaya qoysas fiican asxaabteedii haddii aad hooyadaayoo kaleeto ula dhaqantid wiilka hooyadiis wax dhibaataa ma arkaysid gabadha oo walaashaayoo kaleeto adna ka soo qaadid wax xumaataa iyo dagaal iyo dhib ma imaanayo marka waxaan jeclahay in aan noqono dad walaalaa isku fiican si ay reerkaas uusan u burburin walaalahayga qaaliga ah saasaan rabaa in la noqdo dad fiican inaan noqono dad fiican in yacni gabdho fiican aan noqotinaan rabaa walaalahayga qaaliga ah marka ma ahan haddii oo gabadhii waxyar ku dhahdo in laisku soo boodo hooyadii gabadhaas dhashay ee ayadana xumaato ay tiraado waryaa naagtaada ayaa iga dishay gabadhii kala tagga iyo burburka qoyska meeshaasoo ka bilaabanaya laakiin haddii ay gabadha dumaashideed ka xishooto ay tiraado walaasheedii booskii walaasheed oo kaleeto ay geliso wax dhibaataa ma imaanayo iyo wax burbura iyo wax reerkaas oo kala tagoo ku imaanayo ma laha marka dad aan is aamino walaalahayga qaaliga aan noqono dad fiican ee aan isku kalsoonaano kiini qaladka loo saxo walaalow meeshaas ka qaldan tahay hala dhaho saas ayaan idiin rajeynaa walaalahayga qaaliga inaan noqono dad fiican aan rabnaa insha allah haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe dheh like share garay comment ka bixi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.